Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada qaraabo meel kastaa joogtaanba. Waxaynu joognaa dukaanka oo aynu adeeg yar ka soo qabsanaynaa. Glovesyaan xidhanahay. Waxa laga yaabaa inaad isweydiisa sababtaan u xidhanahay. Waxa weeye maadaama uu jiro xanuun dilaa ah oo maxay ahay toolay aadna u faafaya. Taxadarkuna uu aad u wanaagsan yahay. ayaan u soo xidhay dukaanka alaabta markaan ka soo qaadanayo. Waxa laga yaabaa qof cudurka qaba inuu kaaga horeeyo meesha taabto. Marka aad baan idinku baraarujinayaa insha Allah inay isticmaashiin idinkuna glovesyada marka aad dukaanka ka soo adeeganaysiin. Kadib markaad alaabta guriga keentona inaad markiiba dhaqdid intaanad xaraynin alaabta. Kaliya maaha khudaarta xataa alaabta moorka ah hadday tahay mid bac ku xidhan, mid daasad ku xidhan, mid quraarad ku xidhan waa inaad iska dhaqdid intaanad xaraysan. Maasha Allah halkan waxaynu ku haysanaa alaabtii aynu ka samayn lahayn. Waxaynu rabno maanta inaynu samayno oo ah pizza. 50 gram oo ah fixisada freshka ah ama qoyan ayaynu ku ridanay madiimada ama baaquliga aynu rabno inaynu ku xashino. 2 malqacadood oo sonkor ah oo malqacad weyn aan ahayn ayaynu ku darsanay. Koob iyo badh maxay ahay toolay ah biyo ayaynu ku darsanay. Koob 4 meelood loo qaybiyay meel ahaan oo maxay toolay subaga ama 50 gram oo subaga ayaan ku darnay. Ardaad rabtid saliid bad ku darsan kartaa oliveta maxay ahay toolay saliid saytuunta. Anu kale subagan aan ku daray ma aha kii xoolaha waxa weeye ka dhirta margarine meel dhada. Maxaan ku idhaahdaa sidaas aynu isugu qasaynaa. Maasha Allah way isku qasnayba. Waxaynu ku daraynaa daqiiqda waxaynu ku shubaynaa iyadana 3 koob. 3 koob oo daqiiqa. Caaga buluuga ah aan ku miisayo ama ku cabirayo 6dii waxay u dhigantaa 3 koob oo koobka caadiga shaaha ah. Weeye 3 koob ee daqiiqda ah baynu xashaynaa. Maasha Allah qalabkii ka horeeyayna waa arkayseen inuu ku darnay sidanaynu u xashaynaa. Hadda fargeetan ku xashaynaa. Maasha Allah waan isdhex gelinaynaa si fiican cajiinku inuu isu dhex galo xashku weeye. Maasha Allah waan soo xashnay kadib tuwaal nadiif ah baan ku daboolnay si uu u khamiro 30 ilaa 40 daqiiqo. Waxaynu kala sameynaynaa sooskii casaa ee pizzaha dhakada laga marinayay. Intaan ovenka la gelin ayaynu samaysanaynaa. Waa tamaandho shiidan oo fudud. Maxay toolay gurigaaga xitaa tamaandhada noocan ku shiidan kartaa. Tani waxa weeye iyaduna tamaandhadii tamaandho qasaacada la yiraahdo ama shiishida waxoogaa way yara culustay ama way ka adag tahay ta kale. Marka si ay isu caawiyaan ayaan isugu daray labadooda. Maasha Allah saliidii iyo labadii tamaandho waxoogaa yara xawaasha kani waa khamuuntii hadda aynu ku daraynaa. Waxaynu kaloo isagana ku dari doonaa insha Allah coriander powder ah ama gadaadari marba saad u taqaanid. Maxay ahay toolay toontii shiidneyd ee qalalayd ayaynu ku darnay. Toontii freshka haddaad haysatid iyadaaba ka sii caraf badan oo ka caafimaad badan. Halkana waxaynu ku haysanaa digaagii, toontii, filfil dhagayare iyo xawaashkaad rabtaad ku darsan kartaa adigu aad rabtood ka helsan tahay. Toontiis waynu soo iyo xawaashadii ba isku soo tuntumanay isku soo hagaajisanay saanaynu isu dhex gelgelinaynaa. Kadib maqliga ayaynu ku yara shiili doonaa insha Allah. Waxa kale oo halkan aynu ku samaysanaynaa sooskii marka pizzuhu uu diyaar garoobo ee ovenka ka soo baxo dhakada lagaga darayay ee lagu cunayay. Waa kebab sauce ama pizza sauce waxa doonta ugu yeedh kulay anigu hadda waxyaabahan aan isku darayaa waxa weeyaan yogurt waa caana fadhi waa caanihii aan la lulin ee fadhiga ahaa. Maxay ahay toolay waxa weeye mayonnaise ka diyaarka baan isagana soo iibsaday.
laakiin guriga lagu diyaarsan karaa haddaad rabtid. mar baan soo gelin doonaa insha allah sida mayonnaise-ka loo diyaariyo ee guriga loogu diyaarsado. Paprika ama barbarooniga maxay ahayd tole budada ah ee cas baynu ku darnay. waxaynu kale ku daraynaa chili sauce baynu ku daraynaa xoogaa iyaduna dhadhanka kulayl yar iyo macaan yar bay gelinaysaa. toontii baynu iyadana ku tuujinaynaa waxoogaa yar oo milix ah. milixduna dabcan dhadhanka way u hagaajinaysaa oo hurdaday kasoo yara kicinaysaa. maasha allah, ha moogaanina biitahan inaad samayso aad ayuu u macaan yahay. maasha allah, wax yaro biyaa baynu ku darnay siduu u fududaado soosku. inuu xoog u cuslaado lama rabo. soos dhexdhexaada oo aan biyo dhacna ahayn dee wax fadhiyo adagna ahayn, qaabkaas hadda uu shubmaayo. maasha allah, sooskii maxay tole biitada dhegta laga marinayo xoogaa adag baynu isagana soo diyaarsanay. isaguna waa inuu sidaas u adkaado. maxaan ku idhaahdaa biitsadii ama xashkii ama cajiinkii oo soo khamiiray 4 qaybood baynu u kala qaybsanay. waxa uu aad ugu fiican yahay inaad 2 qaybood ka dhigto oo 2 xabo biitso oo fiican buu ku noqonayaa. haddii aad 4 ka dhigtana 4 xabo yar yar ayuu ku noqonayaa. maasha allah, waxaynu hadda ku qurxin doonaa waxyaabihii la marinayay. waa sooskii casaa ee biitada dhakada laga marinayay ovenka intaan la gelin aynu haddeer soo diyaarsanay. kiibaynu hadda dhakada ka marinay. waxaynu kaloo ku shubaynaa cheese-kii rifnaa oo isagoo saa u diyaaraan soo iibiyay. haddaad cheese-ka maxay tole guriga kuu yaalo caadiga ah eed roodhida saaratid gurigaagaad ku dhex rifan kartaaba, uma baahnid inaad dukaanka ka raadsatid. maasha allah, qurux bay isku noqdeen. waxaa digaagii oo isagana chickenkii oo isaguna aynu soo diyaarsanay, soo shiilnay oo maasha allah aad u udgoon oo u macaan oo dhadhankiisu kaala iska arag. waxaan ku dhaayeen isagana dhakada kaga daraynaa. maasha allah, maasha allah, biitsahan haddaad samaysatid waxaan u maleeyaa dib oo u dambeysay biitsa meel laga iibiyo biitseeriye ma tegaysid, guriga unbaad rabaysa inaad ku samaysato. aad buu u macaaye. 10 daqiiqo ofinka ku jiray. maxaan ku dhahdaa waad arkaysaa markuu bislaado adigaaba u jeeda. sooskii baynu dhakada kaga darnay caddaa. maasha allah, sidaasuu kusoo baxay. waxaan ku idhi feedback ka soo bixiya commentiska kusoo qora markaad samaysatiin siduu noqday. maasha allah, aad ayuu u macaan yahay. kaala iska arag. aad ayaan idiin salaamayaa qaraabo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ha ilaawin inaad la sheer garaysa asxaabtaada. subscribe ka saar, like-ta iyo commenta midna ha ka ilaawin. ciao.